halkan galabta ku qabanaya shir jiraayad oo ku saabsan xagga isboortiga iyo xaaladaha maanta ka jira gobolada waliba gaar ahaan gobolka Sool. Gobolka Sool waxaa koobkiisa eeda ka ciyaariyay 16 kooxood 16 ka kooxood sideedna way hadhay sideedna way soo baxday. Alxamdulillah rabbil caalamiin kooxda kaashaan baa qaaday si wacan buu soo dhawaaday. Ajandaahigu maanta wuxuu daaran yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland Faad wuxuu xilkii markuu qabtay wuxuu bilaabay inuu maanta kooxihii uu dhaho 16 ka ahaa inuu dhaho 10 kooxood baan ka soo reebayaa. Burco 32 seereeda xagga iyaduna ahaydna uu yiri waxaan ka soo reebayaa 10. Boorama sidoo kale Ceerigaabo sidoo kale dhalinyaradii intaas oo sano kubadda jecelayd ee u soo ciyaari tirtay u soo rafaaday inuu dhaho maanta anigu gobolka aan joogo waa Sool inuu dhaho 16 kooxood baa la isku darayaa 16 ka kooxood waxaan ka soo saarayaa 10 kooxood inta kalena way iska tagaysaa. Anigu runaantii kooxda aan u ciyaariyay waxay ahayd kooxda Bariga Galbeed waa kaalinka saddexaad bay gashay runaantii laakiin waxaan ka hadlayaa wacyiga jira iyo dhalinyarada isboortiga xaaladda uu marayo. Faado waxaan ku leeyahay maadaama xiriirka kubadda cagta Somaliland aad noqotay gudoomiyahoodii shaqadaadu ma waxay noqotay inaad tiraahdo dhalinyaradii qaybna waan tuurayaa qaybna waan keenayaa oo aad tiraahdid 10 kooxood baan ka soo reebayaa. Waxaan kula talin lahaa in aan sharcigan hadda cusub aad bilowday inaad ka joojisid kooxaha ama gobolada waayo laascaanood hawl wacan baad ka soo qabatay meel fiican baad ka gaadhay runaantii gudoomiyadnimadaada waan ku hambalyeynay laakiin wasiirku de kulay dhabar taabasho kugu keenay adiguna runaantii kooxaha halka joogana qayb baad dhabarka ka taabanaysaa oo waan ognahay. Marka waxaan kugula dardaarmayaa inaad joojisid kooxahan aad leedahay waan isku darayaa qaybna waan eriyay qaybna waan ka deenayaa. Ujeedkayga labaadna midna fariin waxaan u dirayaa wasiir yeesta faraha badan wax badan bay xumaysaa. Wasiir Faad dhalinyaradii wasaaradii dhalinta iyo ciyaaraha Hargeysa waxay ahayd meel wasaarad ahayd adiguna waxaan Faad anigu aad baan saaxiib u nahay xagga maskaxdu ka digay wasiir oo aad jacayl badan kugu abuuray laakiin si wuxuu u socdaa waa booskaaga iyo ajandahaaga. Waxaan ku leeyahay wasaaradda xaafadda laga day wasaaradda meesheeda loo raro kooxahana bal soo faragaliyo adigu soo tago soo socdaalo gobolada Soomar meel fiican baad ka gaadhay kooxii seereedaad ku guuleysatay kuwii biidaad ku guuleysatay laakiin si Faad wuxuu doonayaa dib inuu cuno inta soo shaqada soo qabateen. Faadow waan ogahay sharcigan waxa laga isticmaalaa sakaaf oo xagga xamar baa laga isticmaalaa 10 kooxood sharciganna waan ognahay meeshuu ka yimi. Waxaan ku leeyahay ka joog baan ku leeyahay waan ka soo horjeednaa haddii aan nahay dhalinyarada isboortiga gobolka Sool runaantii anigu de mas'uuliyiinta hadda aan u ciyaaro laakiin kamid ah baan ahay Boorame Hargeysa Burco Ceerigaabo intaba waan ballansanahay inaan iskugu nimaadno gudiyo Hargeysa si aan uga hadalna ajandahayaga. Gureyna waxaan leeyahay isku duwaha laascaanoodna Maxamed Gurey shaqo wacan buu qabtay waa nin dhalinyara waa nin daa koobkii biido hadda wada oo 3 kooxood ku soo hadhay. Maxamed Gurey adna waxaan ku leeyahay saaxiib aan toshin tashi badan aan sameeyay bal degdeg aad ugu yara jooji adigu wax dhaliil aan ku haynaa ma jiro waxa Faad iyo wasaaraddu soo saarto badadu ku dhaqantaa hawsha ka noqo dhalinyaradii maanta kubadda inta soo ciyaarayay balwad ha u horseedin in aad tiraahdo qaybna way ciyaaraysaa qaybna way iska tagaysaa haddii almiina aad doonaysid in kooxaha seereeda soo baxaan de 8 soo baxay gobol walba ka soo qaad aan ahayn dib koob seereeda u furo nin walba meeshuu ku haro hal ciyaarsi taas sharciya.